xarakada al-shabaab ayaa gudoomiye waaxid waxa ay ku dileen magaalada baardheere ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. wariyeena Nuuraddiin Xasan Ibrahim Shardi ayaa ka waramaya. wararka laga helayo gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in xalay rag ka tirsan xarakada al-shabaab magaalada baardheere ee gobolka Gado ay ku dileen ilaa iyo 3 gudoomiye laameed oo ka tirsanaa degmada baardheere ee gobolka Gado. wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in gudoomiye waaxididan al-shabaab siyaabo kala duwan guryahooda ay ugu weerareen kuwaas oo qaarkood guryahooda lagala baxay kadibna al-shabaab ay toogteen. mid ka mid ah gudoomiye laameedka al-shabaab ay ku toogteen gudaha degmada baardheere ee gobolka Gado ayaa la sheegayaa in al-shabaab ay gooraceen halka labada kale rasaas nool ay u adeegsadeen dilka al-shabaab ay u geysteen gudoomiye waaxididaasi ka tirsanaa maamulka degmada baardheere ee gobolka Gado. waxaana sidoo kale lagu waramayaa in gudoomiye waaxididan lagu dilay duleedka magaalada baardheere ee gobolka Gado iyadoo sida Shabeelle u sheegeen in wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada baardheere ee gobolka Gado. Shabeelle ayaa oo soo xiganaysa il wareedyo ku sugan degmada baardheere ee gobolka Gado ayaa heshay magacyada gudoomiye waaxidada degmada baardheere xalay al-shabaab ay ku dileen. waxaa ka mid ahaa gudoomiye waaxidada al-shabaab ay ku toogteen gudaha degmada baardheere ee gobolka Gado Cabdi Santuur gudoomiyihii laanta Bulakulow ee degmada baardheere ee gobolka Gado, Jabriil Maxamed gudoomiyihii hore ee xaafadda Bulakulow oo al-shabaab ay gowraceen, iyo sidoo kale Carab Jiis gudoomiyihii laanta Dabaqoray oo degmada baardheere ee gobolka Gado al-shabaab ay dileen. shabaabkii falkan geystay ayaa goobta iskaga baxsaday iyadoo arrintan si weyn saakay looga hadalhayo degmada baardheere ee gobolka Gado iyadoo shacabka ku dhaqan degmadaasi waxa iska weydiinaya falkii xalay lagu dilay gudoomiye waaxidadaas ka tirsanaa degmada baardheere ee gobolka Gado. saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada baardheere ee gobolka Gado oo Shabeelle saakay xiriir kala duwan la sameysay ayaa ka gaabsaday in faahfaahin ay ka bixiyaan falalkan amni diro ee ka dhacay degmada baardheere ee gobolka Gado iyo sidoo kale maamulka degmadaasi. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa dhageystay warbixin ku aadan ammaanka Soomaaliya iyo doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliya. wariyeena Mahad Maxamed Cabdulle ayaa soo jeedinaya. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa khudbad ka jeediyay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana uu si weyn uga hadlay guud ahaan xaaladda siyaasadeed iyo isbedelada Soomaaliya. Ambassador James Swan ayaa khudbada uu ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay qodobada uu uga hadlay waxaa ka mid ah doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayo inay dalka ka dhacaan, khilaafka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah, ciidamada la geeyay qaybo ka mid ah gobolka Gado iyo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dalka. sidoo kale khudbada James Swan ayaa qodobada uga hadlay waxaa ka mid ahaa barnaamijka deen cafinta, dhamaystirka dastuurka iyo dagaalka adeeg ee dowladda dhexe ay kula jirto al-shabaab. danjire James Swan ayaa sheegay in Soomaaliya ay markii ugu horeysay soo gudbisay warbixin ku saabsan arrimaha bini'aadanimada iyadoo Soomaaliya ay seexday heshiiskii Kampala oo ay Soomaaliya ku ballan qaaday ilaalinta iyo kaalmeynta barakacyaasha. si gaar ah James Swan ayaa ku dheeraaday sida dowladda Soomaaliya ay u qabanqaabinayso doorashooyinka qof iyo codka ah ee dalka ka dhici doona sanadka soo aadan ee 2021. Mr. President, in 2020, Somalia will face a critical test of its state-building progress. sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay aasaastay nidaam cusub oo ku aadan isdhaafsi nabdoon oo kuraasta ah, taasi oo ah tilaabo ammaan mudan waa in la dareemaa balse sanadkan 2020 sidoo kale doorashooyinka qof iyo codka ah waxay meesha ka saari doonaan nidaamka odayaasha ay wax ku soo xili jireen iyadoo uu joheynaysa shacabka Soomaaliyeed in ay codeeyaan. sharciga doorashooyinka ee cusub waxaa dhawaan meel mariyay golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka, isla markaana waxaa saxiixay madaxweynaha. inkastoo ay tahay tilaabo muhiim ah, haddana waa wax laga shalaayo in sharcigan cusub aan lagu xusin qodobo muhiim ah oo ku saabsan sharciga. qodobadaasi waxaa ka mid ah sida loo meeleynayo qoondada haweenka ee ah in 30% kuraasta ay helaan dumarka, iyo sida ay suuragal u tahay in Soomaalida ka yimaada daafaha caalamka ay ka qayb galaan siyaasadda dalka. waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyadoo kaashanaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo madaxda maamul goboleedyada in xal waara laga gaaro isqabqabsiga siyaasadeed si dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ay u ogolaadaan in xafiisyada guddiga doorashada ay deegaanadooda xafiisyo ka furtaan si doorasho ay u dhacdo.
doorashooyinkan waa in loo qabtaa sida Somaliland, halkaas oo markii ugu dambeysay baarlamaanka ay madaxweyne doorteen sanadkii 2005. dhammaan dhinacyada siyaasadda waxaan ugu baaqayaa in ay suurageliyaan nidaam doorasho ay u qabsoomi karto. siyaasad sal ballaaran iyo dood furan waxay muhiim u tahay sanadka soo aadan ee Soomaaliya si ay u awoodaan musharaxiinta, suxufiyiinta, ururada bulshada in ay si dhow ula socdaan xaaladaha siyaasadeed. waxaan si gaar ah u daneynaynaa in aan maqalno codadka haweenka, dhalinyarada iyo dadka danta yar si aan u ogaano fikirkooda ku aadan mustaqbalka Soomaaliya. dadaalada socda ee dib u heshiisiinta waxay muhiim u noqon doontaa in la helo midnimo ku aadan mustaqbalka Soomaaliya. waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada siyaasadda ee Galmudug iyo Jubbaland in ay fududeeyaan wadahadallada si loo yareeyo qalalaasaha iyo kala qaybsanaan ay ka faa'iideystaan Al-Shabaab. waxaan ognahay in ciidamada lagu daabulay gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland in ay kordhiyeen xiisadaha halkaasi ka jira. Continued efforts toward reconciliation will also be necessary to forge unity on Somalia's future. We call on political actors in Galmudug and Jubaland in particular to engage in dialogue, to refrain from violence, and to avoid divisions that will be exploited by Al-Shabaab. We note recent security deployments in Jubaland's Gedo region have led instead to increased tension. Mareykanka ayaa weerar dhinaca cirka ku dilay maamulihii shirkadda Hormuud ee degmada Jilib. Maxamuud Xaaji Salaad, maamulihii shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya laanteeda degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha dagaal ee dowladda Mareykanka ay ka fuliyeen nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. ilo deegaanka ah ayaa inoo xaqiijiyay in marxuumka geeriyooday ku sugnaa beer uu ku lahaa duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. duqeynta ayaa haleeshay ninkaasi shacabka ahaa kaasi oo si weyn looga garanayay gudaha degmada Jilib xili uu u taagnaa salaada. dhinaca kale war qoraalaha oo ka soo baxay taliska Africom ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeynta ay fuliyeen diyaaradahooda ay ku dileen sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab. warka qoraalka ayaa taliska Mareykanka waxa uu ku sheegay in diyaaradahooda dagaal ay fuliyeen duqeynta markii laga tago warka Mareykanka ee la wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle u sheegay ninka ku dhintay duqeynta uu ahaa qof shacab ah isla markaana ahaa maamulihii shirkadda Hormuud laanteeda Jilib. tallaabadii dowladda Mareykanka ay xayiraadda uga qaaday shirkadda Albarkaad ayaa la soo dhaweeyay. wariyeena onkad aadan ayaa faahfaahinaya. iyadoo dhowaan xayiraadii saarneed uu ka qaaday Mareykanka shirkadii Albarkaad ayaa waxaa isa soo tariyay soo dhaweynta iyo bogaadinta loo diray arrintaasi. Cali Maxamed Nuux Tamajilic, gudoomiyaha midowga axsaabta siyaasadeed ee dalka, ayaa xayiraadii laga qaaday Barakaad ku tilmaamay arrin lagu farxo isla markaana aad u soo dhaweeyay. waxa uu sheegay Tamajilic in hanti qaran ay ahayd lacagtaasi dad badan oo Soomaaliyeed ay lahaayeen hantida taalay Albarkaad. shirkadii ama kambeygii la oran jiray Barakaad hantidiisii oo ah hanti qaran oo ah hanti dad Soomaaliyeed ay isku tartarsadeen. aynagu waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed hantidooda xisbiyadu inay difaacaan. waxaan rabnaa inaan niraahno hambalyo, waa soo dhaweynaynaa. Hormuudna iyo Barakaadna waxaan rajaynaynaa inay dadkooda u adeegaan. axsaabta siyaasadeedna waxaan rajaynayaa in ay meel kastoo ay joogaan difaacaan sharafta iyo maalka iyo qofnimada iyo xorriyadda iyo madax bannaanida. hantidii taalay Albarkaad oo muddo 20 sano xayirneed ayaa dhowaan Mareykanka waxa uu shaaciyay inuu ka qaaday xayiraadaasi, waxaana arrintaasi aad u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan. xisbiyada siyaasadda Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaamay in dalka uu galo marxalad doorasho. wariyeena Jaamac Maxamed Saalax Jaamac Kadiye ayaa dhameystiraya.
xilli dhowaan uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu qalinka ku duugay sharciga doorashooyinka qaranka islamarkaana labada gole ee baarlamanka soomaaliya ay soo ansixiyeen sharcigaasi ayaa siyaabo kala duwan dadku uga hadleen iyagoona soo dhoweeyey saxiixaasi si dalka doorasho qaran uu uga dhacdo 2021 cabdirasaaq waa beri guddoomiyaha xisbiga midnimo qaran ayaa mar uu warbaahinta la hadlayey waxa uu soo dhoweeyey in uu madaxweyne farmaajo uu saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka ay taasi suuro gelinayso in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah ee lagu wado in soomaaliya ay ka dhacdo 2021 waa sida uu yiri guddoomiye cabdirasaaq meel mariyo ansixiyey sharciga doorashooyinka dowladda Soomaaliya federaalka ah ee hal qof iyo hal cod senatarada labada aqal xildhibaanada labada aqal wasiirada ka soo shaqeeyay golayaasha wasaaradda dastuurka ka soo shaqeeyay guddiga madaxa bannaan doorashooyinka mudane ra'iisul wasaare khayre iyo tiimkiisa iyo ugu dambeyn ugu horeyna madaxweynahana kulligeen mudane farmaajo ayaa waxaan idin leenahay waad la socotaan xisbiga midnimo qaran hindisaha sharcigan wuxuu la socday taako laga bilaabo dowladdii xukuumaddii oo dowladda kula walanahay xukuumaddii madaxweynayaashii hore ugu dambeyn xasan sheekh maxamuud hindisa sharcigan waxaa la soconay tallaabo markasta waxaan ka dhiibanaynay fikirkayga ra'yigay waxa ugu dambeeyay waxa dhowr wiil ka hor ama bil iyo xoogaa ka hor dhanka kale Ibraahim Saalax Dayfullah oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii 9aad ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga midnimo qaran ayaa cod dheer ku sheegay in xilligan lagu fara adeego dowladnimada haatan dalku uu haysto maadaama uu dalku soo maray marxalada adag isla markaana ay xilligan muuqato in uu dalka ka soo kabsanayo burburkii iyo colaadihii uu soo maray inta aan haysana meeshan ka nimid waa ognahay go'aysihii silci rafaadkii aan ku naf adeegno dowladnimadaas iyo xorriyadda aan haysano markii uu burburkan ugu dhacay dad far badan oo Soomaaliyeed oo xisbigan runtii aasaasay waxay u aasaaseen god baan ku dhacnay sidii godkaas ummadda Soomaaliyeed looga soo celin lahaa waxa isugu tagay qaybaha kala duwan ee bulshada waxgaradkooda siyaasiyiintooda dhaqankooda waxay yiraahdeen sidaan u gudanaa waajibkii dalkan uu nagu lahaa dad far badan oo tacliintii canshuurtii dadka masaakiinta laga qaadayay wax ku bartay ayaa runtii nafta waxay ag dhigeen habeenii maalin u soo siyaasiyiinta u hanqaltaagaysa doorashada madaxtinimo ee dhowaan la filayo dalka in ay ka qabsoonto ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey saxiixa sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweyne farmaajo uu dhowaan sharcigaasi ansixiyey ku dhowaad 5 ruux ayaa lagu dilay in ka badan 80 ruuxna dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib dibadbaxyo rabshado watay oo ka dhacay caasimadda dalka Hindiya saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in isbitaalada la keenay dad dhaawacyo ay ka soo gaareen rasaas loo adeegsaday iyo dad kale oo u geeriyooday rasaas toos ah oo loo adeegsaday rabshadaha ayaa waxa ay dhex mareen dad taageerayay iyo kuwa ka soo horjeeday nidaamka dhalashada ee dowladda dalkaasi Hindiya taasi oo keentay in kumanaan ruux ay gacmaha isula tagaan